siyaasiga madaxa bannaan ee Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo qayb ka mid ah fideenka kula hadlayay halkan waa hotelka Ambassador ee jihada dhanka koonfureed ee magaalada Hargeysa ay waxa uu markii ugu horeysay si adag u dhaliilay xukuumadda xilligan ee uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka maqnaa masraxa siyaasadda inkastoo jireen arrimo badan oo mudnaa inaan ka hadlo sidaa waxaan moodeedan sawirka guud ee maanta dalku marayo ma aha mid qurxoon wuxuuna dib ii xasuusiyey mirihii ka dhashay talaxumidii 60kii oo ku qotonta kala qaybinta iyo kala irdhaynta ummadda walaalaha kooxdani waxay ku adeeganayaan isbahaysiga siyaasadeed ee jeegaamaysan oo ah shaar ay keligood ku macaashaan waxaan ku nuxnuxsanayaa inaan marnaba beelaha ay ka soo jeedaan loo aanayn karin ereygaas iyo siyaasadda guracan ay halabuurkooda leeyihiin waxaynu wada ogsoonnahay in nuxurkii halgankii adkaa iyo curashadii Soomaaliland ujeeddadeedu ahayd inay dalkeenna ka suusho cadaalad darradii iyo dulmigii midabada badnaa eena soo maray mid shakhsi iyo mid deegaanba lana dhiso bulshaweynta Soomaaliland bari iyo galbeed oo nabdoon midaysan meelna u wada jeeda dhib iyo dheefna u siman waxay cabashooyin sii kordhaya ka soo butaacayaan gobollada Awdal iyo Salal iyagoo ah hoygii midnimada Soomaaliland loomana muujin wax garowshiga himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee uu waday Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo Soomaaliland la wada leeyahay waxay ku dambeysay inay tisqaadi weyday lana siin waayay mudnaanta waxaa jihaalaan u daldalan gobollada Sool iyo Sanaag bari waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarinay ka jirin waxaana ka aloosan dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida haldoorkii u yimid ee uu Cali Khaliif hogaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen bahdilaad iyo niyadjab waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee Sanaag bari iska daa garowshiyo iyo baadigoobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkaynaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo ciidanba laguna sheegay calooshooda u shaqaystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray inta hadhayna loogu baaqay inay ka daba tagaan taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadiniinta waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku la'atay sidii dalkan iyo dadkuba u xoroobi lahaa in madaxweynuhu qiimayn waayey odayaashii beelweyntii siday nabadayntii arrinta caariya fadhigaana waxaa ugub ku ahaa isla markaana bahdilaad u muuqday in madaxweynuhu odayaasha nabaddii la qaadan waayey isla markaana cajalad ka duubay soona baahiyey cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa xarigga goostay xarigga iyo cagajuglaynta loo geysanayo cid kasta oo fakarkeeda saliimka ah cabirta iyo awooddii dawliga oo si aan hamrasho lahayn loogu xalaalaysanayo hantidii qaranka iyo tii danyarta baroorta hooyaduna ka dul yeerayso dhagaha inkastooy jiraan intaasoo mugdiyo ah oo isa saaraan waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga iclaamiye Burco noqon karo mid badbaado qaran shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara dibna u yegleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto waxaan ku talinayaa in shirkaas inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlaan labada beelood oo keliya ee gogoshu noqoto mid furan oo turxaan bixisa kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood sidoo kale waxaan waxgaradka ummadda
ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay waxa aan isku nahay. fidyanada ayaa kula boobay dhowr su'aalo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose kuwaasoo qaarkood la xidhiidheen inuu madaxweynaha ka hor intaan warfidyaanka la hadlin xidhiidh la sameeyay sidoo kale inuu ku hadlayo xisbiga mucaaradka wadani oo markii ugu dambeysay uu ku biiray kadib markii laga soo gudbay doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo meesha ka baxay ururka siyaasadeedkii uu hogaaminayay ee ummadda. hoggaanka xisbiga wadani nin baa haysta kulana tartamay hadda waxaan ku hadlayaa aragtida siyaasadeed. siyaasiga ayaa mar kale warfidyanadu wax ka weydiiyeen dhaqaale la tilmaamay inay badan yihiin oo inta badan uu ka qaado dadka isbitaalkiisa soo booqda ee xaaladda caafimaad ku sugan iyo sida ay isku qabanayso in xilligan u soo ruqaansato dhanka siyaasadda. marka hore kolkaan siyaasadda ka fariistay waxaan ku fakeray sidee dadkaaga u caawin karta. waxay hor yimid boqolaalo tigidku dhowr kun yahay, hoteelka hindiya dhowr kun yahay, dhakhtarku dhowr kun yahay, turjubaanku dhowr kun yahay. aniguna siyaasad baan ka soo baxo jeebkayga shilin kuma jiro. qalabkana MRI-da ugu yaroo milyan iyo bar bay joogta xaggeen ka keenay dadkaan ka qaaday alaab baan ugu soo iibiyey iyakana ku isticmaalay anigu meel lama geysan deynteedii baaba liigu leeyahay. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga Somali Cable, Hargeysa.